wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaaliya maray ku-xigeenka wakaalada Lion Enterprise ayaa garoonka ciyaaradaha ee Galadwell ee magaalada Jigjiga ku soo dhaweeyay gudoomiyaha haweenka ee dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmidid isla markaana ka soo kicintay wadanka Finland hadda waxa wareynta halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdiqaadir Ibraahim iyo maray ku-xigeenka wakaalada Lion Enterprise mudane Xaaji Matan waxaan soo dhaweynaynaa walaasheen gablabada gabdhood ee walaaladeena waxaan dhahdayay hodan iyo ikraan aan ku soo dhaweynaa wadankoodii deegaankoodii oo muddo badan ka maqnaayeen sanado badan sababo kala duwan awgoodna ay uga maqnaayeen haddana waxa weeyaan xornimadan oo iyagu waliba halgankeeda ay iska lahaayeen madaxeedana ay lahaayeen waxa weeyaan dadkii maalkooda waqtigii adkaa iyo muruqooda u huray maskaxdooda iyo fikirkooda geliyay in waxa weeyaan isbedel uu yimaado isbedelkan hadda aan ku naaloonayna inuu yimaado dadkii xubnaha ugu adag ah waliba dhanka genderka ama gabdhaha markii la yiraahdo gabadhii ugu adkayd hodan dadku waxay ku yaqaanaan social mediaha xariirtii bay u yaqaanaan marka waxaan leenahay hodan soo dhawow deegaankaagii baad timiday dadkaagii baad u timiday anaguna aad baan ku xiisaynaynaa inaan ku soo dhaweyno dawladuna way ku soo dhaweynaysaa anaguna waan ku soo dhaweynaynaa waxaan halkan si kaliya laaba oo sharaf leh walaaltinimo ku dheehan tahay kalsooni ku dheehan tahay aan ugu soo dhaweynaynaa hodan daahir ibraahim waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay in halgamaayad dhibaatadii iyo tacadigii dadkeena haystay ka dulqaatay iyadoo gabadhana u adkaysatay wax walbo lagu sameeyay u dhawaad adeegtay inay maanta waxa weeye meeshii ay halgankii guushiisii ay maalayso oo ay ku soo noqotay carigeedii hooyo aan ku soo dhaweynayno caasimadda magaalada Jigjiga waxaan leenahay hodan in lagu dadeen mudan tahay geestikale waxaa halkaas wareys kula yeelanay gudoomiyaha ururka haweenka ee dulmidid hodan daahir ibraahim oo sheegtay inay wadanka ka maqnayd muddo gaaraysa ilaa 7 sano isla markaana ay timaado deegaankeedii oo isbedel ka dhacay dhanka siyaasadda waxaan ku faraxsanahay Allah subhanahu wa ta'ala ba mahadskal nabadii aanay keenay alxamdulillah waxaan u mahadcelinayaa dhalinyartada quruxda badan ee jeclahay mas'uuliyiintayda dhammaan waan u mahadcelinayaa ana wadankayga ka maqnaa 7 sano duruufo jira awgood oo maanta ay muddo alxamdulillah oo maxay hay'ad awal hore la dhihi jiray maxay hay'ad waxaan ka baxaynaa aanan garanaynin oo cabsi darteed aanu iman weynay maantana maxay hay'ad wadankayga waxa soo dhalinyaro igu soo dhaweynayso oo ku faraxsan alxamdulillah Cabdiraxmaan Buux telefishinka Hoon Cable bartamaha caasimadda deegaanka magaalada Jigjiga